Videogan waxaan kuu tusi doonaa sida translation loogu soo daro website-kaada. Haddii website-kaada aad soo dhigto articles ama post Soomaali ah, waxaan arki doonaa qaabka qofka website-kaada soo booqdo ugu bedelan karo post-yadan luqadda uu rabo. Hadday ahaan lahayd English sida meesha kaaga muuqato ama Arabic iyo si la mid ah luqado kale oo kuwan ka sii badan. Haddaba si aan website-kan ugu soo darno translation waxaan qaadi doonaa kaliya laba step. Step koowaad ayaa ah inaan la soo degno translation plugin. haddaba si aan ugu soo darno markaasi translationka waxaan tagtaa marka hore qaybta dashboardka ee website-kaada. Kadibna waxaa tagtaa markaasi meesha ay ku qoran tahay plugins. Kadibna waxaa dhahdaa add new. marka meeshaan waxaad ku qortaa plugin loo yaqaan G Translate, sidaas bay u qoran tahay. Kaliya sidaas u qor, kadib waxaa dhahdaa enter. Haddaba pluginka oo baahanahay waa midkaasi. Kaliya waxaa dhahdaa install now. kadibna waxaa dhahdaa activate. markii aad pluginka la soo degto, markaan u gudubno stepka xiga. Stepka labaad ayaa ah inaan setup gareyno pluginka. Haddaba si aan u setup gareyno waxaad sameysaa hoos soo deg. kadib meeshaan ay ku qoran tahay setting korkeeda ku dhufo. kadib meeshaan waxaad u jeedaa midigtaada inuu kaaga soo baxa G Translate-ka. wakaas ku dhufo kaliya. marka aad ku dhufato plugin sidaan buu kugu soo baxaa. marka qaybta u horeysa meesha u horeysa ayaa waxaa loo yaqaanaa markaasi widget look. widget look haddii aad fiiriso waa uu isbedelaa sida muuqaalka. waxaad dhihi kartaa calan iyo drop down camal saas iga dhig. muuqaalkaas waad uga dhigi kartaa, midkaas waad uga dhigi kartaa. widgetka kusoo baxaya marka hore. midkan koowaad ayaan ku dhaafa aniga. marka labaad wuxuu ku weydiinaa translate from luqadda aad ka turjumayso. ani hadda Soomaaliya ii dooran, meeshaan luqadda Soomaaliya ka dooro, waa laga helayaa. luqadda aad rabto inaad ka turjunto oo website-kaada uu yahay Soomaaliya. waa aniga hadda post-yada qoran waxaana ka turjumaa Soomaaliya. marka xigta meeshaan wuxuu ku weydiinaa menu ka tus. waa muhiim. meeshaan waxaad ka doorataa markaasi menu-ga uu ka soo muuqanayo bahalkani translation-ka. waxaan leeyahay anigu hadda primary menu koro ku sameysan. menu-gaada magaciisa fiiri. marka xigta wuxuu ku weydiinaa show floating language sector-ka qaybta oo rabto inaad ka soo muuqato. waxaan leeyahay top right. waxaan rabaa qaybta midigta inuu ka soo muuqdo. top right aan ka doorana. website-kaada qaybtiisa midigta koro ayuu ka soo muuqanaa. marka xigta wuxuu ku leeyahay native language-ka waad ka dhigi kartaa meeshaas oo hadda hal mar tig saar wuxuu isku bedelaysaa af Soomaaliya noqonaysaa. luqadii u dhash native-ka ayaad ka dhigi kartaa. marka sidiisa hore aan iskaga dhaafaa Soomaaliga ahaa. marka qaybahan oo dhan intaas ugu muhiimsan. markii intaas aad sameyso wax yar soo deg. meeshaani luqadaha marka aad rabto ayaad ka dooranaysaa inay soo muuqdaan. oo markaasi post-yada loo turjumay dhammaantood waa dooran kartaa, laakiin luqadaha ugu muhiimsan is leedahay dadka website-kaada soo booqda way adeegsanayaan. meeshaani ka dooro. ani hadda in luqadahani kale uma baahna, tigta waan ka qaadaa. meeshaas sidoo kale marka waxaa idin ka bedeli kartaa kore color-ka ka bedeli kartaa oo luqadda magaceedu blue ka dhigi kartaa sidaas. marka sidiisa aan iskaga dhaafayna madowga ahaa. marka intaas aad sameyso marka wax yar soo deg markaasi. kadibna waxaa dhahdaa markaas save changes. hadda save changes marka aad dhahdo waxaan sameynaynaa marka website-kan ayaan booqanaynaa. website-ka marka aad booqato wakaas waxaa ujeedaa inuu qaybta midig ee kor oo noogu soo baxay luqadihii aan doorano tigta noo saaran kaliya inay meeshaas kasoo muuqanayaan. marka waxaan sameynaynaa hal post ayaan ku dhufanaynaa oo article-kana waxaan sameynaynaa waa turjumaynaa. inuu turjuma ayaan fiirinaynaa anagoo ku fiiri doon dhammaan luqadaha. marka saa ujeeda postiga waa dhex joognaa. marka meeshaasi kore ayaan ku dhufanaynaa oo translate-ka ahna ku dhufanaynaa. kadib waxaan leeyahay marka koowaad waxaa u bedeshaa luqadda English-ka postigan Soomaaliga ah. marka wax yar sug. saa ujeeda waxaa arkaysaa inuu luqadii dhammeed oo u bedelay. dhammaantood website-ka waxa yaalo dhan way isbedelayaan. marka qaabkaas u bedeli kartaa. marka xigta haddana haddii aan ku laabto aan ka doorto luqadda Carabiga oo aan dhaho Carabi u bedel. si la mid ah haddana waxaa ujeedaa inuu isku bedelo dhammaan post-yadii wixii dhammaay inay isku bedeleen luqadda Carabiga. marka qaabkaas website-ka aad translate ugu soo dari kartaa. awooddaas ayuu leeyahay. si la mid ah haddii aad u baahan tahay markaas haddii aad rabto inaad dhisto website-kani oo kale waxaan ka diyaarinay koorso intro hordhaceeda videoga u dambeeya ayaan soo dhignay. marka waad helaysaa. marka koorsadaas jeegaray haddii aad u baahan tahay inaad website-kan oo kale aad dhisto oo Essence aad ku xirato qaabka website-kaada lacagta ugu sameyso. koorsada qiimaheedu waa yar tahay. marka discount yaan sameynay ka faa'iideyso.
haddii aad wax su'aala qabto ama si lamid ah u baahan tahay si guud in website lagu dhiso ama laga caawiyana iyaduna sidoo kale waa ila soo xiriiri kartaa wixii faahfaahin qaybta waxaan dhigi doonaa markaasi link description-ka videogan soo marka khayr badan.